السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريهان waxaan idinla wadaagayay xanuunka ba'an ee maandooriyaasha ay bulshadeena ku hayaan si wacyiga dadweynaha iyo dadka ahlu xal wal caqdiga ah ee xilka uu ka saaran yahay bulshada tan ay ugu noqoto talo caafimaad oo ka caawisa go'aan gaaristooda. Maanta waxaan doonayaa 3 drugs oo runtii aan ugu yeeray daroogooyinka ama maandooriyaasha rasmiga ah ee bulshada ama bini'aadamka waqti badan saameyn ku lahaa. Maxaa yeelay sida loo qaato ayaa waxay tahay dadku inay u qaataan faakihaysi ama inay ku raaxaystaan ama waxa loogu yeero inay uga baxaan xaqiiqada ama waaqicay ku nool yihiin in ay isku ilowsiiyaan. Dawooyinkaasi waxaa la yiraahdaa recreational drugs. Waa maandooriyaal oo dadku ay u qaataan raaxaysi iyo ku madadaalaysi iyo escape ay u qaataan. Waxayna kala yihiin number 1 waa xashiishka waxa loo yaqaan ama marijuana ama weeds oo geedka la yiraahdo cannabis oo maxaan ku raada mas'uul ka yahay. Geedkan muddo hore ayuu bini'aadamka ogaaday dhibka uu leeyahay. Waxa weeyaan waxaan la isticmaalaa caleemihiisa iyo ubaxiisa iyo wixii la midka ah. Geedkaasi qaybihiisa kala duwan ayuu bini'aadamka isticmaalaya. Waxaa ku jira boqolaal chemicals oo kala duwan oo ay midda ugu halista badan ay tahay THC, tetrahydrocannabinol. THC midaasa runtii marka qofka ay gasho qofka waxay ku sameynaysaa high way ka dhigaysaa, maskaxdiisa bedelaysaa, dhibaato badan way ku keenaysaa. Dadkuna waxay u qaataan noocyo kala duwan oo haday noqon lahayd qaac ahaan iyo haday noqoto vaping iyo mararka qaarkoodna hadda wadamada qaarkood oo Mareykanka ay number 1 ka tahay cunadaaba lagu daray cabitaanka iyadoo edible la yiraahdo oo cookieska iyo cake iyo brownieska iyo shaaha iyo koolada iyo alcoholka ayaa la isugu daraa oo waxaa dhici karaysa xataa shiishada iyo waxyaalo badan oo dadka iyaga ay cabitaan ahaan marka ay ku darsadaan marka ay raaxaysanayaan sidii ayagu u yaqaanaan in ay qeyb ka tahay. Qaybta labaadna waa cocaine-ka. Iyana waa runtii waa drug ama maandooriye runtii halis ah oo dadka ay u qaataan ama sanka ay ka qaataan ama isku duraan ama heroin-ka isagana waa midka saddexaad. Saddexdatan haday noqon lahayd xashiish oo cannabis ah, cocaine iyo heroin waa 3 halis ah. Waa 3 chemicals ama sun ama drugs ama maandooriyaal oo halis ah oo aanan garanayn bulshadeena in ay gaadhay iyo inay qayb ka tahay waxa dhibaatooyinka in haysta. Dhibaatooyin caafimaad bay leedahay. Marka ugu liidato waa marka addictionka qofka mar hadduu bilaabo kadibna waa ku dhegayaa, kama hari karo, waa ku soo noqnoqonaya ilaa iyo aakhire u dirto. Maskaxday aad dhibaato ugu geysataa, qaarkoodna dhiiga physical health-ga dhibaato gaarsiisaa iyo waxyaalo badan oo xagga socialka bini'aadamka qoyska ku kala burbura. Maxaan ku raahdaa reeraha ku kala tegay, maxaan ku raahdaa financial hardship bay leedahay, shaqo la'aan iyo homeless qofka inay ka dhigto meelo badan oo hadda Mareykanka iyo wadamada qarbiga ah waynu aragnaa dhibaatooyinka ay ku gaarsiisay dadka aan Soomaalida ahayn iyo kuweena Soomaalida ahba. Laakiin Soomaaliya waxa u dheer marka crime rate-ka uu kor u kaco ama violence-ga ay sameynayaan cabtooy baa waxa la isla markaad maqlaysid dadkaasi cabtooyda ah baan doonayaa oon xiisaynayaa waxa ay cabsan yihiin waxa ay yihiin. Ma ku jiraan kuwan recreational drugs ma ku jiraan kaasoo aan u malaynayo ama aan shaki ka qabo inay qayb ka yihiin. Marka xalka wuxuu noqonayaa on taladan ku darsanayaa waxay tahay qofka arintan ay hayso prevention in la baaro oo dhiiga laga baaro, kaadida laga baaro, candhuufta laga baaro, timaha laga baari karaa. Haba badan baa loo baari karaa. Waxaa lagu ogaan karaa qofkan in uu cabay ama uu cabsanaa markuu arintan sameynaya ama qofka xaalkiisu sidan yahay testin haddii loo diro waxaasoo dhan dowlad ama qabiil baa samaysan kara. Runtii aad baan ugu faraxsanahay gobolada qaarkood sida salaadiinteeni iyo dadkeena caqliga u saaxiibka ahaa inay u istaagayaan inay dadkooda ama deegaankooda ama gobolkooda inay wax ka qabtaan, taasoo runtii aan barnaamijyo gaar ah ka sameynayo wixii wanaaga in aan ku taageero ummadda. Waxa la doonaya marka in la baarano waa xashiishkii iyo cocaine-kii iyo heroin-kii ayaan ka hadlaynaa oo qofka la doonayo in laga baaro. Haday noqoto cocaine-ka waxaa la baarayaa waxa loo yaqaano benzodiazepine metabolite ayaa la baaraya cocaine-ka markay noqoto. Markay heroin-ka noqoto isagana 6M ama morphine-ka qofka dhiiggiisa laga baaraya. marka xashiishka noqoto isagana THC-ga aanu sheegna ayaa la baariyaa iyo waxyaalihii chemicalska ee ka dhashay waxaas oo dhan blood test lagu ogaan karaa
marka muhiim waxa ah oon kusoo gabagabeynayo wacyigelin badan baa loo baahan yahay si daacadnimo ah dadka iyaga inay u wada hadlaan siiba dhalinyarada in la badbaadiyo supporta loo baahan yahay qoysaska dhibaatada qaba in la taageero waxayse u badan tahay dadka masaakiinta ah ee aan waxba haysan dhalinyarada aqoonta iyo dadkan maxaan kula dagaaladu siyaabo kala duwan ay u saameeyeen ee maanta aamusan dadkaas ayaan aad uga baqanayaan onogahayna inay dhibaatada gaar u tahay treatment and healing baa loo baahan yahay in dadku ay helaan in la daweeyo qofkii u baahan counseling baa loo baahan yahay in maxaan kula dadka maskaxdooda iyo lala taliyo medical care dadku inay helaan baa loo baahan yahay yaa ka mas-uula nidaamka caafimaadka ee deegaanka adigu aad joogtid ama qof kasta meesha gobolka uu sheegtay oo madaxweynaha uu ka yahay iyo ninka xilka guud haya madaxweynaha guud ee ummadda ayaa xilkaas u saaran yahay haddii ay dadkaasi hooshooda gabaana waxay noqonaysaa in markaasi kaaba qabiilka iyo cid kasta oo markaa meeyarka magaalada iyo degmada mas-uulka ah ayuunbay noqonaysaa waxaan kusoo qatimayaa waxay tahay arrintan waa arrin u baahan in gamcaha this is a public health crisis waa arrin bulshadeenna wada haysata dal iyo dibadba meel kastoo ayna ka joogno waxaan kusoo kordhiyo waxay tahay testingkaasi maxaa yeele waxa ay dhibaysa markii la yidhahdo cabtooy baa waxaan samaysay ama qof sarqaansanaa baa waxaan sameeyey su-aasha ugu horreysa aan isweydiinayo nidaamyada aan ka mid ahay ee halkan aan la joogo waxay tahay muxuu ahaa waxaasi simple drug test ayaa lagu ogaan karaa qofkaasi ujeedadana ma ahan in qofka in maxaan ku lagu ciqaabo ma ahan ee qofka waa in la ogaado si looga hortago inuu dhibku intaanu kasii fogaan safetyga ummaddaa ku xiran recoveryga qofka inuu soo kabto ayaa ku xiran haddii qof uu noqdo positive muhiimadda maahan hala xiro keliya inkastoo haddii arrintu ay ku shaqo leedahay wax crime ah ama qofkii shil ama waxyaabo badan uu qofka sababay ogaanta waa loo baahan yahay waxa uu ahaa daatadaasina runtii waxay anfacaysaa dadka public healthga ama xirfadlayaasha dadweynaha caafimaadka ku shaqada leh ayay mustaqbalka inay policy fara badan iyo waxyaabo badan ummadan dhibka hadda ay ku jirto ka maanaca ka hortaga ayaa arrintaa ka dhalanaysa waa haddii la helo testing iyo deera runtii inay ogeysiisa waxa dadka iyagu ay maanta la dhiban yihiin waxaan kusoo qatimayaa waxay tahay a healthy community is one that heals not one that hides community ama bulsho ama dadweyne ee caafimaad qaba waa midda isdaweysa isgargaarta wax isu sheegta aqoonta isu hadiyeysa ee ma aha mid wax kala qarsata ee maxaan ku raada isdhagrata ma ahan waxaana jeclahay insha allahu hadalkaygaas inuu qof un wax taro wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu